waxaan rabaa saaka inaan u caddeeyo cid kasta oo shaki kaga jiro wixii ka dhacay halkan shilkii diyaaradeed ee ka dhacay halkan iyo waxa uu ku sugan yahay airportka Beledweyne. waxaan rabaa inaan caddeeyo baaritaan dheer iyo xog raadin badan. waxaan noo caddaatay oon rabaa saakay inaan la wadaago siday wax u dhaceen dadka. diyaaraddii ku dhacday garoonka Beledweyne waxaa la soo gaadhay in la yidhi dameer baa riday oo waddada taagnaa. waxaan rabaa inaan u caddeeyo cid kasta oo shaki kaga jiro airportka Beledweyne saasuu u xihan yahay. meesha hadda aan taaganahana waa airportkii Beledweyne, ma aha derbi kale agtiima taagnin. airportka Beledweyne saasuu u xihan yahay, siligaasaa ku xihan. taasi waxay caddaynaysaa inaan dameer jirin, duul kaloo meel kaga yimidna uusan jirin. arrinta diyaaraddaas u dhacday markaan la wadaagay aviationka Soomaaliya madaxda u sarreysa waxay ii caddeeyeen in diyaaraddu hadday dhankan ka soo degto dabayl xoog badan ay jirto oo diyaaradda inay gediso laga yaabo. sababtay intii uga soo degtana ay sidaa ahayd, isla markaasna laglajanse ka timid bayloodka dhankiisa ka timid iyo buurka halkaa yaalla dhinaciisa ka timid iyo amar ilaahay ayaa diyaaraddaasi ku burburtay. kuma burburin dameer uu istaagay iyo mucjiso kaloo ku dhacday midna kuma burburin. secondi waxaa kaloon rabaa in aan dul istaago arrinta debdebiska. markaan waraysi dheer la yeeshay aviationka Soomaaliya waxay ii caddeeyeen in airportka Beledweyne uu lahaa debdemis. markii aniga xafiiska 3 bilood baan joogaa iyo maalmo. sababta ay ku dhacday in garoonkani uu debdemis yeelo waaye markaan dib u raadiyey waxa aviationka Soomaaliya madaxda u sarreysa ii sheegtay in debdemis uu lahaa garoonka Beledweyne, gacantana ay ku hayeen xafiiska Umbos. waxaan rajaynayaa sida aan aviationka ama duulista hawada ee Soomaaliya aan ku wada hadalnay in diyaaradaha yaryar ee 45 ee ka soo degi karaya dhankan magaalada ama hawada dhinacay doontaha ka soo degeen way furan yihiin oo way isku afgaranayeen garoonka Beledweyne adeegaas dib loogu soo celiyay haddii Ilaahay idmo. inta laga dhammaystirayo adeega dhaliisha ka jirta ee yar, garoonkani wuxuu furan yahay muddo 20 sano inay dhinta aan filayo ayuu furan yahay. habeen iyo maalinna weligeed roob hadda ayuusan diine kama joogsan, diyaaraduhu kama joogsan jirin. waxaan u aanaynaynaa ciiddaa dhiiqada ah ee lagu daadinaya maalin walba problemku inuu yahay. ciiddaa dhiiqada ah ee lagu daadinaya in problemku yahay ayaan u aanaynaynaa in garoonkaa lagu degi waayo. ayadana dib unbaa looga wada hadli doonaa, waana la sixi doonaa haddii Ilaahay idmo. carrada waxaa dhigay UN-ta ayaa dhigtay carrada, maanaan dhigin annagu. ama ha noqoto shil diyaaradeed wax sababaha keenay, ama ha noqoto wax kale, carrada annagu maanaan dhigin. halkani waa Samakulan TV. waxaad ka heli kartaa wararka dalka iyo dibadda, kala soco warar xaqiiqo ah iyo barnaamijyo xiiso badan. Samakulan TV.